السلام عليكم ورحمة الله. ما haysataa ciyaal yaryar oo 2 jir 3 jir 4 jir ilaa iyo 7 jir ah haddaad haysatid 5 jir fiidiyogan adiga ayuu ku anfacayaa walaashaada kale ee haysatana gaarsii iyo walaalkaaga kale oo haysta maanta waxaan iska rafacayay kitaabadii yaryaraa ama buugaagtii aan isticmaali jirnay xilligii hore ciyaalku yaryaraayeen ayaan raba maanta inaan iska donationka meesha iska geeyo oon iska kala rafaco waqti yar baan haystay markaas waxaa igu soo dhacday walaalahaaga soomaaliyeed lacala allah inaysan ogeyn ama way ogyihiin macnaha ay qof dhiirigelin u noqotay gaarsii waxaad arkaysaan buugaagtan yaryarkaa oo kaleeto islamic activity books sida ma aragtay buugaagtan oo dhan waxay kaa anfacayaan haddii ciyaal yaryar aad haysato caradan qurbadana aad ku dhashay waxaa shardi ah inaad cunugii wax baraysid mar xisaabtii baad baraysaa mar maaragta luqadii kala duwanaa baad baraysaa mar diintii baad baraysaa marba waxbaad baraysaa oo waxaa kuu yaalla haddaabad waalid noqotay inaad waxbarasho aad ilmihii la tiigsato daqiiqad walba marka buugaagtan kale waxay kaa caawinaya cunugaaga markuu 2 jir yahay ama 3 jir yahay 4 jir ilaa 5 jir iska dheh ilmuhu wax activity leeraha u baahan yihiin inay wax qoraan inay wax kala gareeyaan inay picture fiirsadaan ay u baahan yihiin marka maxaa ku caawinaya intaad kala ro aad u soo gadi lahayd wada maaragtay aan waxba ka turjumayno maaragtay aan macno lahayn waxaad u soo gadaysaa buugaagtan oo kaleeto waxay ka caawinayaan any workshop ama meelaha maaragtay lagu gado bahalkii oo dhan waa ka helaysaa Amazon waa ka helaysaa islamic oo ujeedaan hadda meeshaas waxaa la dhahaa www.muslima.org halkaasna waad ka helaysaa laakiin anigu normally dukaamada caadigan aan kasoo qabsan jiray Amazonna waad ka dalban kartaa ayagoo baageejo isku xirxiran marka ayagoo activity ay leeyihiin ayagoo akhrisahay leeyihiin nooc walbay leeyihiin marka buugaagtan maxay kaa caawinayaan haddaa ujeedid quraanka story maxaa la yidhaahdaa word bank xadiis word search coloring letters bowen gabayaa ku jira leesanaa ku jira ducooyinaa ku jiro marka waa meesha ilmaha la rabo inaad maskaxda kaga xaddo oo waxa weeyaan aad diintiisa tartiib ugu fahansiiso asaga oo ciyaaraya halkaan oo kale haddaad aragto xaraf walba waxa uu maaragtay ku qotomo ayaad halkaan ka baraysa hadda ilmahaas oo kale qor baa lagu yiri 7 xaraf 7 maaragtay magac oo of Allah 7 macnaha Allah ayaa halkaas eragaas la kala gareynaya eedii buu kala gareynayaa Allah subxaanahu wa ta'aala habuu baranayaa kadibna halkaan ayay kugu sii taala macnaha wax kasta oo cunugu adaa marka u akhrinay maadaama cunugu wax akhrin karinin adaa u akhrinaya kan Allah markaasuu waxaad u akhriyaysaa macnaha sheekada maarta ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaad baraysaa tartiib who was abu maxaa la yidhaahdaa Talib iyo muu ahaa micnaha cunugii marka fiirinka ilmaha yaryaraaya fartooda wallahi they were good ana cunugii yar 5 jir ah inuu fartaas qora is not bad xiliyadaas ma u malaynay 5 jir meelaha inay ahaayeen marka waa kaasa ereyadiisa se ku baranayaan way karoosay markuu bartaba uu isbeeliye markuu raadiyaba ereyga halkaas crosswords la yiraahdaa ka dhex raadiyo leeda Allah raadi waad la raadinaysaa true worship created resty human macnaha ereyada uu raadiyo dhan wuu sirkolaya marka really ilmaha important u tahay inaad activities u sameynayo in aad ku bartid maxaa la yiraahdaa waa kaas wax qorayaan macnaha wax kasta oo ma arkino ay qorayaan way kala gareynayaan kadib halkaas waxa la tusayaa you know waxa soo dhan marka walaalayaalow marka saas hadda islamic maxay islam maxana one umma inay tahay macnaha brother and sister ay tahay micna waxaas ku baranaya daily ducaa oo ujeeda maalin kasta ducada bismillah inuu yiraahdo inuu maaragtay markuu gacmaha dhaqanayo bismillah yiraahdo you know cunugii wuxuu ku jiraa learning macnaha islaam diintiisa uu baranaya waana ciyaaraya oo same time waxbu kala garanada buugaan oo kaleeto xoog looma isticmaalin uu iska banaan yahay donation ka raba inaan geeyo qofkii ila deganaa ii dhowna uu soo doonan karaa for free ayagoo badan kuwaan oo kaleeto wuxuu ilmuhu ku baranayaa hadda kuwaan oo kale waa kuwa aan la isticmaalin maybe bogga ugu horeeya kaliya laga isticmaalay macnaha wuxuu ku baranayaa cunugii eray inuu qoraalkii halkaan oo kaleeto man nabiyuka نبي محمد
صلى الله عليه وسلم يودهايا وكلر جرينا هدنا يا then قال كان أسي سعنايا إن معناها سسو سعنايا ما فهمت عنقو برنايا إن ترود محلها كلرن أيوكو برنايا إلهي سبحانه وتعالى وحكو برنايا النبي جيسو وحكو برنايا you know إريدا وناكسن أردن إن شاء الله تعالى بقاك تاس ولا ليال عيالك هالقولد دالو وحوين ومهم جدا المي مرول بمدام أو عيارة مرول بمدام أو حبرنايو حتى نوحا شردي إن ما عرفت عنقي هلو ما عرفتي markii xoogaa soo yara roonroonadaan oo wax fahmaan haddana maxaa u baahan tahay waxaa u baahan tahay ciyaalka inay kitaabada yaryaraayo dhan bartaan inay maaragtay foundationka ilmihii laga dhiso halkaan oo kaleeto hadda khulaasatu nuur yaqiin ayaa ku yaala inay maaragtay nabiga historigiisa bartaan sheekadiisa bartaan macnaha taariikhuhu soo maray wixii la maray oo bartaan halkaan oo kaleeto utuulu thalaatha yaala macnaha inay markaa ilmihii maaragtay fiqigiya halkaan yaala oo cunuga uu maaragtay wax ka fahmo diintiisa hadda maaragtay marka matnigay u badan yihiin kuwaan oo dhan ilmuhu marka yarriin dhan matnigaa la iska baraa halkaan oo kale manduumadiyaa taala marka walaalayaal kitaabadaas haddii dhowdahay waad soo doonan kartaa dhammaantood marka insha allahu tacaala muhiimiyadda aan inagugu soo gala waxa weeyaan in aad ilmaha intay yaryar yihiin labada maalin ama halka maalin ay fadhiyaan aad ku mashquulisid in ay ku ciyaaraan oo macnaha ciyaar ahaan aad uga dhigtid diintooda inay bartaan okay halkaan oo kale waxaa yaalla kitaabkan hadda xusni muslimka ilmaha waa aragtay carabi weyn ma akhrin karaan waddamadan markay joogaan carabi ma akhrin karaan way ku yara adag yahay ilaa iyo dee marka dambe oo ilmuhu wax fahmaan maahane waxaad arkaysaa halkaan oo kaleeto adkaar daily adkaarkan waa free boqolkiiba boqol waxaan ka order garaystay beri hore walaalaha la yiraahdo umma welfare trust free waa kasaa lambarkooduna ujeedina umaleyna hadda picture ka qaadan kartid boqolkiiba boqol waad wacaysaa waxbaad ku doonayd garaynaysaa waxaad rabto $1 allah ka dhigay dan in alla iyo inta kitaab aad rabtid mid alle midkaa doontidaa lagu soo maaragtay doonid garaynaya waa ilaahay subxaana wa tacaalaha walaalo dartiis u shaqaynayo oo waxa weyn jecel inay islaamka jooga wadamada aan maaragtay islaamka ahayn in ay maaragtay diintooda fahmaan marka muxuu ka helayaa cunugii dad halkaan oo kale hadda furtid micnaha horta wax kasta hadda for example ducaa waxaan aadaynaa adkaaru sabax wal masaa oo kale morning ducaa and evening halkaan oo kale cunugii marka waa loo sharaxayaa for example cunugii wuxuu baranayaa in uu ma aragtay akhriyo hadda for example aan tagno sorry hal gacanan ku haaya gacana telefoonka ku haaya marka in aan hadda halkaan oo kaleeto okay let me try halkaan oo kale hadda waxaan rabnaa in aan tagno hal duco let's say ya ducadaas oo kale هذا بركو عنقي أخريه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن معناه عنقي عربي ما أخرين كرو أوكي دوس عربي أخرين كرين معناه إنجليش أهان يا يوكو أخرين كرا معناه هذي وفهمايا you know مركا هلكا سكرتو دعاء أنا كل هذا دايركتد اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة هل كانوا كلوا تجاي عنقي Oh Allah I ask you for well-being in this world and the next you know ساس عنقو برنايا وما باهنا إنه عربي يقانا مهمة لكن عنقو إنه دينتي صبرت أيام مهمة و of course عربي هو مهم لكن step by step عنقو يرسد حجرة أفرد شرقة شنشر كما اكسب كتقريني سيد إنه ماركتي عربي وصيتها أوها الله دوسن دي ودالانين okay هل كانوا كانوا حقوق الصايا إلهي سبحانه وتعالى مقعيديسا كووذا معناها patience markaad deganaan rabtid kuwooda iyo gratitude mahadnaqa aad rabtid kuwa aad akhrinaysid kuwa maxaa la yiraahdaa aan ku kala yara bixiyo kuwa markaad the greatest names of Allah halkan u soconaysa macnaha ku kala calaameynaya kitaabka yar subhanallah qofku waqti yar geliyo loofka marka jacayl aad rabto inaad maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala jacaylkiisa adoomaha hadaad jeclaanaysa awlaadaada jacaylkooda wax walba qaybta aad akhrisanaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyadiisa ayuu ku kala barayaa marka insha Allah walaalayaal kitaabadan waa very important runtii aniga ayagoo badan aan ka dalbaday walaalahaas
ama donation sii ama ha siinin waad kuu soo dirayaan ayaku marka waxaan kula talin lahaa dee sadaqadan waa lagama maarmaan baxso kitaabadan oo kale iyagoo waaweyn oo macnaha dadka waaweyn loogu talagalay ayagoo yaryariis oo carabiga kaliya ah oo kooban oo kitaabkan oo carabiga kaliya ku kooban ayagoo maxaa la dhahaa waaweyn oo sida maaragtay buug caadi aad moodid oo ballaaran oo sida maaragtay qofka weyn u akhristo kale dhammaan oo isku xiran baa lagu soo diray 4 nooc ayagoo 3 nooc ayagoo ah noocan carabi kaliya oo yar oo kooban oo jeebka gashanaysid iyo asaga oo weyn oo maaragtay informationkiina leh oo dadka waaweyn loogu talagalay inay akhristaan iyo size-kan marka waa xusni muslimkii oo lagu maaragtay Englishkii macnihiisii warbixino badan runtii aad iyo aad baan kitaabkan anigu isaga akhristaa aad iyo aad baan u jecelahay warbixinta markaad waqti yar heshid oo 2 page maaragtay aad fiiriso gadaal u milicsato how to remember Allah sideed ilaahay ku xasuusanaysaa uu ku barayaa tartiib marka oo English qofka luqadda Ingiriiska yaqaan ma sha Allah aad buu anfacaya runtii ilmaha waliba qurbaha jooga runtii aad baan anigu ugu faa'iiday ciyaalkayga alxamdulillah marka walaal adna isticmaal kitaabadaasna maaragtay insha Allah doonid gareynaya dad arada joogto ka soo faa'iideysan kartaa guuliga gobonimo idin rajeynaya intaas jeclaada walaal inay idin la wadaago sidoo kale ciyaalka marka ay ma arkino oo maalmaha ay fadhiyaan oo kale waliba gabdhuhu aad bay u jecel yihiin maaragtay inay maaragtay barnaamijyadan oo kale xoog u fiiriyaan markaa rabto cunugaaga inuu yara maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala macnaha nimcooyinku siiyo kale aad rabtid inuu qoro يعني markay soo roonaadaan waaye markaan oo kale de cunug laba jira de waxaan ma fahmaayo laakiin maxaad maanta ilaahay ugu mahad celinaysaa oo kale dan 3 eray kaliya qoraaleeda kama badinaysid dheydku qoraaya 3 eray ilaahay wuxuu ugu mahad celinayaa hooyo fiican inuu isiiyay hadduu dhaho waa inaaf ilaahay wuxuu ugu mahad celinayaa inaan maanta noolahay ilaahay wuxuu maanta ugu mahad celinayaa in aan maaragtay wax baranayo inaan indha heesto inaan dhiga heesto wax ku maqlo waxaasoo dhan ya kadibna xaalada cunugii markuu asbuucu dhamaado boos dheh kadibna runta buugaan meela lagu iloobay adeera ka soo qaaday macnaha buugaan aad loo isticmaalin macnaha arkaysaa take a moment xaalada waqti yar qaado oo maaragtay weekii la soo dhaafay inta dheyd ka qortid asbuuci la soo dhaafo dhan maaragtay reflection ku samee ama dib u xasuusasho oo maaragtay qor 2-3 eray ama adiga weynba waad ka faa'iideysan kartaa happy thoughts al dhahaa ama fakarado macnaha farxad ah ama wanaagsan غير بقدر رجينا أنت سنجعل هذا إن إدلو وداعو عيالك مركي أد وحبريسد كبر ترود الإسلام إن هذا علمي وقفة إليسد وحيالها نقلة إحنا الصاقط ماش على العقد هذا كل بحين يسد توي يوم حالي هذا كله أو أن معنا الصاق كردين كذا وحن الماء إنه وحكي الرجرين مرول بويبهين مركزت عيالك 10 دقيقة مالين كستعنقي إنه لبس ساعات half an hour 30 دقيقة 20 دقيقة إنه عنقو حكى الرجريو مسك حديث سي مارته ودروين كلا ربض إنه جرجا جيالين شبه هذا وحلو قلت جستو إن عيالك أو كلا كيف إذا سكران وحيالها صدق لكن بالشرط عنق إن آد مالين كستوح إسلامك بلبي طبعا كمان تسديد ساعات سكول شوقي وكدر جي مارته وحيالها كله لك أدينا لنا عقل إنها كسيست يا cunugii hadhow tadii wuxuu noqonayaa markii wax qaldan iyo macluumaad tiraahdo saan maartay nabi ciise waa wiilka ilaahay oo kale iyo waxaas markay la yimaadaan maya ay leeyihiin dhib badan ay qabsan jiray runtii aniga waxa leeyahay waa prophet ilaahay hadhina la leeyahay ma fahant wala iska celinaya laakiin cunugii maskaxda ka maran yahay waxay noqonaysaa in ma aragtay wax kasto loo sheego uu aamino hadhowna adiga ay kugu soo noqoto dib ilmahaagina ilmo daciif ah oo islaamka ka dhisnayn ay noqdaan guliga gobonimo idin rajeynaa walaalayaal aaba kastii hooyo kasta waxaan ku dhiirigelinayaa please ilmahaaga wax waqtiga ay ciyaarayaan uga faa'iidee waxyaalaha faa'iidada guliga gobonimo idin rajeynaya walaashii naftaabta doono idin leh Soomaali ha guuleysto islaamka ha guuleysto kana faa'iideyso waxyaalaha ilmaha aad ku qaban kartid intay yaryar yihiin sababta cunugu markuu yar yahay haddaada waxa maskaxiisa aysan gelinin quraan xifdi hadday tahay inuu xadiis xifdiyo wax kasta way u fududiin markuu yar yahay ya cunuga yarka oo hal sano bar quraan ku xifdinaayo ma aragtay
adiga weyn 5 sano 4 sano daba joog wax ma xifdi karto maskaxda ku daashay konton jiraata 60 jiraata laakiin ilmahan yar daqiiqad wuxuu arkaba uu qabanaya hal maanta haduu duco uu akhriyo maskaxdu ka haaya dib dambe uma ilaawaayo ku celceli adaa laakiin la rabaa inta dhulka u fariisatid ina colorkiin la darow garaysid oo tar ana page kana color gareyna adna kan color garey for example halkan markuu color gareynayo ya hal bog oo for example inta uu color gareyna inta markuu wada adna waa ina inta wadid oo tiraahday okay ana dhinacana color gareyna adna dhinacaan color garey marka walaalayaal khayr baa idin rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu